haweenaydii ayaa aad u naxday markii ay aragtay geed yaab leh oo cabsi badan oo si kedis ah uga soo dhex muuqday dhexda waddada. Isla markaana waxay hore ugu soo arkeen geedkan oo kale 7 jeer iyagoo ku soo noqnoqonayay isla marinkaas. Arrintaas waxay haweenaydii ku dhalisay inay markiiba garato inuu jiro qof uur leh oo ku dhex dhuumanaya rakaabka. Dhammaan rakaabkii goobta joogay waxay ku adkaysteen in midkoodna uusan uur lahayn. Qaarkood xataa waxay ugu hanjabeen gabadhii darawalka ahayd inaysan argagax gelin haddii kale ay dacweyn doonaan. Laakiin haweenaydii waxay sheegtay inaysan haba yaraatee la kaftamaynin. Haddii uu dhab ahaantii jiro qof uur leh oo saaran gaariga, markaas qof walba wuxuu geli lahaa khatar weyn. Intaa kadib waxay go'aansatay inay iyadu shakhsi ahaan u samayso baaris si ay u hubiso rakaabka uurka leh. Arrintan waxay markiiba ka xanaajisay rakaabkii saarnaa baska, iyagoo si cad u sheegay inay tahay darawal keliya, ayna xaq u lahayn inay waxaas oo kale samayso. Intii qof kastaa ka mudaaharaadayay ficilkeeda, nalalkii gudaha baska ayaa si lama filaan ah u bilowday inay damdam yiraahdaan. Tani waxay ka dhigtay rakaabkii markii horeba walwalsanaa inay sii baqaan. Haweenaydiina waxay garatay haddii ay weli heli weydo qofka uurka leh in xaaladdu ay khatar noqon doonto. Sidaas darteed waxay u yaacday dhanka haweenaydii taajirada ahayd, wayna qabatay iyadoo isku dayaysa inay baarto. Si lama filaan ah waxaa wejiga kaga dhuftay dharbaaxo xooggan haweenaydii taajirada ahayd. Taas beddelkeeda islaan waayeel ah oo ag joogtay ayaa xataa si toos ah dhulka ugu riixday. Islaantii waayeelka ahayd ayaa iyadoo xanaaqsan waxay ku eedaysay haweenaydii darawalka ahayd inaysan xaq u lahayn inay taabato gabadha ay sodohda u tahay. Markay taas aragtay, haweenaydii darawalka ahayd waxay noqotay mid hadal uu ka soo bixi waayey. Waxay mar kale uga digtay in haddii ay sidan sii socoto ay aad u khatar badnaan doonto. Laakiin haweenaydii taajirada ahayd waxay u malaysay inay keliya isku dayayso inay sheekooyin jinniyo ah samayso si ay u cabsi geliso, kadibna ay lacag dheeraad ah uga dalbato. Sidaas darteed waxay soo bixisay xirmo lacag ah, waxayna ku tuurtay wejiga haweenaydii darawalka ahayd, iyadoo leh waxay haysataa lacag badan, kuna tiri markiiba gaariga dhaqaaji. Iyadu ma ay ogeyn in ruuxanka xooggan ee baska uu ka dhigan yahay in wax walba ay mar horeba soo daaheen. Waxaa soo baxday in haweenaydu ay ahayd darawal bas oo shaqaysa xilliga habeenkii. Geeridiisa ka hor, awoowaheed wuxuu si gaar ah ugu digay, isagoo u sheegay in marinkan habeenkii ah ee ay ka hayso aan marnaba loo ogolayn inay raacaan haween uur leh. Haddii kale wax aad u xun ayaa dhici lahaa. Badbaadada qof kasta oo baska saaran darteed, haweenaydii had iyo jeer waxay xasuusnaan jirtay taladii awoowaheed. Ka hor safar kasta waxay si ku celcelis ah u xaqiijin jirtay inaan la ogolayn rakaab uur leh. Laakiin maanta dhowr rakaab ah oo si cad u yaqaanay xeerarka ayaa weli si xoog ah ugu soo galay baska. Kadib markii qof kastaa fariistay, haweenaydii waxay mar kale adkaysay xeerka safarkan. Waxay sheegtay in haweenka uurka leh aan gebi ahaanba loo ogolayn marinka habeenkii. Rakaabkii waxay si dulqaad la'aan ah ugu sheegeen inay bilowdo kaxaynta gaariga. Waxay sheegeen inaysan jirin haween uur leh oo saaran, marka waa inay joojisaa welwelka. Markay taas maqashay, haweenaydii wax dambe ma oran. Waxay fariisatay kursigii darawalka, waxay kicisay matoorkii, waxayna u diyaar garowday inay dhaqaaqdo. Si kastaba ha ahaatee, wax yar kadib markii bas ku baxay, arday ayaa si weyn u weydiiyey waxa dhici lahaa haddii qof uur leh uu dhab ahaantii soo raaco. Haweenaydii ayaa si degan u tiri haddii ay qof uur leh soo raacdo, qof walba waa uu dhibaataysan lahaa. Isla markii ay tan tiri, qof walba indhaha ayuu cabsi darteed la ballaariyey. Haweenaydii damaca qarsoon lahayd ayaa aad u baqday ilaa ay markii dambe ku fariisatay dhabta ninkeeda.